soo dhawaada saaxiibayaal markale isku soo noqod wanaagsan maanta waxa idin wada taxanaad xiisa badan oo yarda eed show inta muuqaalkeena gudaha u koro waxaan ku xasuusinaa sidii caadiga inaan muuqaalka lana garajina kan subscribe subscribe ku in aad ba u maasan tahay bilowga taxanaad waxaan roo baraya wiil lagu magacaabo jinsho aad buu shaqeeyay isagoo haysta laba shaqo si uu lacag ugu aruursado sababta waxa lagu la deyngaa 900 milyan yuunka wuxuu lacagtaas ku maalgeliyay suuqa saamiyada isagoo deen ugu qaatay xiibkiisii nasiib daro dhamaan saamiyada suuqa way problems dadka lacagtiisii way dhamaatay inkastoo sidoo ku shaqeynaa wuxuu wiilgiisa u bixin kara deynta sida weyn sida darteed wuxuu go'aansaday inuu isdilo isagoo doonay inuu ka boodo boonto isdilo laakiin silim filan tareen ayuu helay qof ayaa kunkiisii ugu soo 400 milyan taas aad ugu fajacday gaarigii weyn ayaa istaagadaashiisii waxa loo calaamaday inuu raaco gaariga wuxuuna fuulay gaariga kaasoo geebar hortiisii markuu gudaha galbaarka wuxuu hal warqad ku qoranta waxa laga cusub bandhiga sideedaad waxa lagu qorkaa in internet ciyaar isla markaan la siin doono lacag daqiiqad kasta halkaas uu joogo arinta xiisa la waxa inuu u baahnay xirfad halkaas ugu jiri karo sidoo kale waxa la siin doonaa cunto halkaas uu ku joogo waqtiga markuu soo qiimaha la siinayo si kordhaysa ciyaartuna waxay dhamaan doontaa marka saacad weelkaas taal istaagto hadii Johnson organ ciyaarta kale wuxuu ku xulun karaa kaarka miiska hortiisii yaala hadii kale wuxuu qaadan karaa lamin uu iska bixi karaa markii hore Johnson dadka ma lahayn ciyaarta wuxuu doon lacag iska qaato iska baxo laakiin wuxuu gartay lacagtaasi ku filay inuu ku bixiyo deynta wuxuuna garwaaqsan dhibaatooyinkiisii dib u bilaami doonaan wuxuuna go'aansaday ciyaarta galo wuxuu qaatay kaarka lambarkiisu iyo saddex wuxuuna u dhaqaaqay dhanka ciyaarta lambarkaas ayaa noqon doona qoyskiisii inta ciyaarta ay socoto markuu gudaha gal ciyaarta wuxuu arkool aad weyn oo dhismo wuxuu la 800 kala duwan manager cadahagiisa darteed wuxuu ag dabaqa saddexaad isagoo lambarkiisu uu yahay 3 qol aad weyn oo salonkiilaya yaala dabaqa saddexaad wuxuuna ka intusiyo shaashada kaamirooyin badan CCTV manager meel u fariisto ama ku nasto wax ka qolka laa waxay dharkiisii ciyaarta buuga xeerka wuxuu akhri buurka xeerka waxa ku qornay in heli doono 100 daqiiqad kasta halkaas uu joogo wax kale waxba ku dalban karo waxa intersenka laakiin wax kasta uu dalbado waxa laga jaray qiimaha balmarintiisii waxa kale lagu yeerinaysan taaban kaamiradaha hadii ay taataan lacagtooda wala kala baraya markuu tanarka jiiso wuxuu xirtaa dharkiisii ciyaarta isla markaa ay warkan lacagtii shaashada ka muuqanaysa si joogto u kordhayso 300 daqiiqad uu bakunkiisii ku soo dhaceysay wuxuuna aad ugu farax saacada baa saddex u dhaafay sigoo faraxsan laakiin markaas uu hurdo dareemay qolka aad buu quwa sida darteed wuxuu damacay inuu dalan bacda lagu seexdo markii qiimaha loo sheegay aad buu u yaabay maxaa yeelay qiimaha wax walba halkaas aad buu u khalisnay ku adduunka yaala waxa ugu jaban waxay ahayd jariirad wuxuuna bilaw jariirad wuxuuna sidaas ku dhamaaday habeenkii si dib iyo ku dhamaaday subaxda wuxuu ku toosay buuqa dadka markuu dibad u baxo arkay dadka lambaradooda ku qoran yihiin dharkooda dadku waxay ku kala jiraan dabaqay kala duwan iyadoo loo eegay lambaradooda dadku way isku faraxsanayeen markii ay arkeen laakiin way la yaabeen sababta halkan loo keenay cid keentay waxay sidoo kale arkeen saacad weyn oo muujinaysa 3 saacadood waxayna fahmeen ciyaartii dhammaan marka saacada ay gaarto ibar waxaana halkaas yaal intersion ku dalban karaan waxay doonayaan laakiin midkood moogin qiimo ku kici doona wax walba ay dalbadaan iyagoo sidaas u fikiray lambarka 6 ee dalbana baaka sigaar markuu sigaarkii loo keeno 2 daqiiqo ayaa laga jaray waqtigiisii saacada markaasay fahmeen qiimo wax walba lagu bedesho waqti hadii uu yar lacagtuna way yaraanaysaa waxayna gaas inaysan dalban karin wax kale oo muhiim ahayn waxa ugu muhiimsan waxay inay helaan ka nadiifinta kadib markii isniifin hoos u degeen dib kale yahay qof cunto meehel marka laga reebo lambarka 8 ay sheegtay habeenkii dhan cunto loo keeno qolkooda yar ay ka cuntada intii kale way keensatay markii sidaas tir waxay fahmeen wiishka qolkooda galeen cunto oo keeno wiishkaas oo ka bilaabana dabaqa 8 kun yimaada dabaqa koowaad laakiin habeenkii lambarka 8 cuntadii qaasad darteed dadka hel cunto meesan helin marka dhamaantoodii waxay u dhaqaaqeen lambarka 8 si ay gaajada uga baxaan markii ay tageen waxay arkeen wax la yaabo qolka lambarka 8 wuxuu kan ugu raaxada badan isla markaas sida lacagta u badan siin joogtaanka halkaasi laakiin lambarka wad wuxuu helay kali 100 yuun waxayna ogaadeen in adeegyada lacagaha dadka dabaq ku jira ku duwan yihiin markii taa ogaan waxay isweydiinayaan sababta u dooran waayeen lambar weyn si ay markale u kaajireen cuntada oo dhan si aysan wax kale u dalbanin dib markay ka soo baxeen markii hoos u degeen lambarka faraad aad u qeylinaya markii qeyladiisii maqlay dhamaantoodii hoos ugu degay iyaga cabsi ku jira waxayna arkeen
laakiin waqtiga yar ka dhimin 15 saac kaliya tan waxay sababay lambarkiis diiday oo dalbata dhar badan in dahabiyo markii sidaas arkeen dhamaantoodu waxay naqeen sababtoo hadda waxay heli doonaan lacagta ugu badan 15 daqiiqadooda lacagta samada kaliya la bixi doonaan iyadoo isku dayis inuu diis lambarkiis diiday ay tiri hay sugu aan oga sida waqtiga loo kordhiyo waxay tiri idinkoo dhamaantiin fuura jaranjarada waqtiga uu kordhay qofna arintaas raali kama ahayn balse halka la meejir waxayna bilaan jaranjarada fuulaan 15 daqiiqo gudahooda lambarkii koowaad ee aad u dhibtooday arintani sababta lugtiisa way dhaawacantay inkastoo 15 daqiiqo si joogto u fuuleen waqtiga waliba si saac waxayna ku siigteen is dhiibaan laakiin sila filan farxad weyn ee wajigoodii ka muuqatay sababta waxay heleen 4 saacadood dheeraad ah farxadoodii kale waxay hadda ogaadeen sida waqtiga loo kordhiyo hadda waxay qorsheen si joogto lacag badan u helaan waxayna hadda bilaan jaranjarada ordaan maalin kasta tani waxay siinaysaa waqti dheeraad balse habeen kasta ay daali jireen si dhibkaasi loo xiro waxay isku qaybiyeen laba kooxood oo isla kooxin hal koox ordamada kale ay nasato maalintii xitan kooxda kale ay ordatan kale ay nasato saas in waqti kordhin kara iyagoo aan daalin kooxdu ku jir lambar koowaad si cad u ordi kari waayay sababta darteedii laba xubin oo kooxdiisi kamid ah lambarkii 6 lambarkii 8 aad bay u sulciyeen markii sidaas aragtay lambarka labaad aad bay xumaatay waxayna go'aansatay inay orad halkii ordi lahaa lambarka koowaad tani waxay la macnaatay inay ordonto maalin kasta inay shahir doonin jiis oo lambarka 3 aad buu u murugooday xaaladda lambarka labaad wuxuu go'aansan inuu orad halkii lambarka koowaad ordi lahaa dhowr maalin kadib uu ordo lambarka labaad sidaas ay shaqadii ku wadeen markii maalmo u socday dhibaato kale ayaa timid qashinka mashquul aad buu ugu bato qoralkooda dhamaantoodii aad bay ugu markay taasi ogaadeen nambarkii koowaad wuxuu ka in qashinka mashquul dhamaantood qolkiisii la keeno sababta dii orod ugu caawin karo wuxuu rabaa in sidaas ugu caawiyo haddaba dhamaantood waxay qashinka mashquul ugu mar qolkiisii iyagoo wiiska adeegsanaya dhibaatadii waa la xalibay mid kale ayaa timid inkastoo maalinka jaranjarada fuli kara waqtiga orodka aad buu u yaraa arinta waxay dhamaantoodii ku abuurtay walaac kale intii xaaladda taagna lambar koowaad aad buu xanuunsaday wuxuuna helay weer argagax oo aad u daran markii si saarkeen way cabso waxaan u qaaday introsinkiisii daawo u dalbadaan laakiin lambarkii 6 lambarka koowaad maysan ogola inay dadka sidaas sameeyaan sababta waxay ka baqeen in waqtiga la hel dib loo lumiyo labadan qof aad bay u naxariis darabadayneen laakiin lambarka koowaad aad bay ugu xanaaqday inkastoo gabarta dal aad bay u geesineed waxayna kala geeyay dagaalka shaniga ugu xog badan lambarka 6 si ay nolosha lambarka koowaad u badbaadiso dagaalkan weyn ee dhaxmar labadoodii inta lagu jiro dagaalka waxay dhaawacmeen dhamaadka dagaalka lambarka koowaad ee la arkay silan filan inuu helay 40 saacadood dheeraad ah markuu fahmay in dhammaan kamerada halkaas yaar si toos u daawanayaan ciyaarta dhabta waxaana loo tusiyaa dad kale intay dadka maqlayaan waxay helayaan waqti badan waxay noqotay midaan cidna kaliya waqtiga loo heli karo inay ordaan hada dagaalkii lambarka 6 iyo lambarka labaad dadkii daawan aad bay u yaqaan dagaalkaasi sida daraatay waxay heleen waqti dheeraad ah waxayna ugu fariistay waxayna ka fariistay uma weelaan dadka maalinka daawanaya si waqti dheeraad loo helo si jooga maantoodii waxay isla gartay in qof walba uu muujinayo kartidiisii markaas dadka ay ku maweeli doonaan waxayna heli doonaan waqti dheeraad ah dhamaantoodii waxay ku heshiiyeen balse jiisu aad bay u nid sababta ma lahayn karti gaar ah si kasta waxay bilaabeen kartidooda ay muujiyaan ugu haray lambarka 7 aysan ka yiri fuundi taasoo dadkii dhammaan daalisay markaas isla wada heelnaato socdo dheeraad ah markii waqtigaasi heleen aad bay ugu farxeen waxayna go'aansan waqtigu ku filin yahay maalintaasi dadkii kale waxay kartida soo bandhigi doonaa biritoole laakiin maanta waxay loo gaaminta maalmo ay doon isii joogaan iyo inta waqti ay rabaan inay helaan sababta qofna mar inuu nasiishin halkaas ku noolaa si uu lacag u helo waxay rabaan lacagta helaan banaanka u baxaan ku raaxaystaan waxayna u dhiibeen go'aanka lambarka waad maxaa yeelay siga lacagta u yar buu helay sidoo kale wuxuu naafo wuxuu u sheegay dhabaanta ururka kaliya 1 milyan oo yoon balse wuxuu rokobsa 2500 oo yoon wuxuuna u baahan yahay kaasi joogo muddo 75 maalmood gudahooda si uu lacag u heersan dhamaantoodii waxay go'aansan inay sii joogaan 75 maalmood sababta dhamaantoodii dan ugu jirta inay sii joogaan 72 maalmood xilli macnata waqti badan si waqti intaas leeg u helaan waxayna bilaayeen ka fikiraan kartida ku muujin doonaan halkaas ku dhamaanaysa qaybtiina ku taxanihiini waxaan aad iyo aad ku diidanay soo qalasayna qaybtiina labaad intaas la gaaray waxa ka caawisana muuqaalka loo noqdo rajayna subscribe ku heen aad iyo aad ba u maasantahay daawade